book fair waa meesha ay isku arkaan aqoon-yahanada waa meesha ay ku kulmaan qorayaasha Soomaaliyeed sanadkiiba mar muhiimadda ay leedahay waxay tahay qof waliba oo talent ah ama aqoon leh meesha uu ku soo bandhigi lahaa inay tahay sidoo kale meeshan waxaa ka faa'iideysto arday badan oo Soomaaliyeed aan fursad u helin inay helaan malaayiinta buugaagta halkan lagu soo bandhigayo marka waa fursad waxay u tahay ardayda waxay u tahay qorayaasha in aqoontu ina hagto in maskaxda aynu tuujino oo maskaxdu ina hagto in wax akhris iyo tartan iyo qoraal iyo thaqaafad la soo bandhigo lagu tartamaa ummadaha horumar iyo horukac bay u horseedaa carwadan runtii waxay dhiirigelisay ay soo saartay runtii dhalinyaro aad u badan oo aanan ku dhiiranaynin marna inay buug soo saaraan I think this is going to be something great for parents and children because ultimately what the book fair is all about is to promote illiteracy, reading not just for school but reading for fun, reading for pleasure, promoting anything that's related to knowledge, scholarship, and uniting authors and professors and poets and playwrights, Somalis and non-Somalis, giving them a chance to network, benefit from each other, so that it will contribute, as I say every year, to the building of the new Somalia that will be better tomorrow than today,